waxay noogu yimid baarlamaanka waxa weeye wafdi ka socday IGAD waxa weeye safiirkii Soomaaliya Somaliland iyo la taliyay IGAD xagga siyaasadda iyo ambassadorkii Ethiopia Ali oo wafdiga la socday waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay yimaadaan Somaliland IGAD baynu ka mid nahay arrimaheena waxaan doonaynaa IGAD inay rol weyn ka qaadato waayo de wax iyaga xoogaal u ah waxaan ka wada hadalnay baarlamaanka sidii ay u caawin lahaayeen IGAD waxaan ka wada hadalnay doorashooyinkii wanaagsan ee loo dhacay waxaan ka wada hadalnay arinta tukaraq oo hadda cusub waxaan u sheegnay wafdiga inaan Soomaaliland halka ay joogto ayaan dhaafeen dagaal dambana ayaan dhacayn halkaana ciidamadu joogayaan inta la wada hadlayo in wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya la bilaabo IGADna ka noqoto rol weyn ka qaadato waagi hore rol weyn kuma ay lahayn laakiin hadda waxay diyaar u yihiin inay qayb weyn ka qaataan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaybta ay ka qaadanaysaa IGAD waayo iyaga aad inoo yaqaan oo dhaqankeena iyo dadkeenu say yahay og marka aad intaasaan ka wada of Somaliland to congratulate the people and the government of Somaliland for a successful election and inauguration and also we hambaliyeen ay noogu yimaadeen inay hambaliyayaan hoggaankeena cusub doorashada shacabka Somaliland galeen ee nabadgelyada lagu kala qaatay markii shanaad xukunka lagu kala wareejiyay oo ku runtii qiray in ergeygu ay ku tahay gobolkan aynu ku nool lahay ama qaaradan aynu ku nool lahay ama wala oran karo caalamka inay ku tahay mucjiso ku cusub oo wadan yar oo aan la aqoonsano intaas oo awoodiisu ay soo aan ciidan ka taageerin uu ku guuleysto inuu sameeyo waxa kale oo socodkooda kamid ahaa sida ay uga qayb noqon lahaayeen wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo runtii kolka lagu noqdo Turkigana uga dhow Yurubna uga dhow waayo waa IGAD waa gobolkan ku nool lahay waa deegaankeeni waa dadkii aynu isku xulafada ahayn waa dadkii aynu isku gobolka ahayn dhaqanka iyo dhiigayna wadaagina marka inay mushkiladda Soomaaliya iyo Somaliland ay tahay IGAD problem ama mushkilad IGAD leedahay xalkuna uu ka yimaado IGAD